السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو أسكيري عيسى أكو مقعدير حرباوي. waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowduuc aad iyo aad u muhiim ah kaasoo ku saabsan suuqa forex. Si aad uga faa'iido forex trading waxaad u baahan tahay saddex shay. saddexda shay waxay kala noqon doonaan midka koowaad dulqaad markii la yiraahdo forex waad ka dhex ganacsanayso aad trade aad furanayso buy iyo sell aad sameynayso waxaad u baahan tahay dulqaad sababtoo ah qiimaha wuxuu socon doonaa 8 saacadood ilaa 12 saacadood iyo in ka badan 3 maalin ilaa 4 maalin kuwa ayaa socda signaladooda qaar sababtoo ah waxaa macquul ah inuu ku jiro suuqa wax la yiraahdo range market inuu ku jiro sidaas darteed marka haddii aad signalka aad hubto aad gashay trade-kii aad hubto aad gashay waxaad u baahan tahay inaad dulqaad aad muujiso si aad u gaarto targetkaaga kadibna aad u hesho faa'iido badan. number 2 wuxuu noqon doonaa anshaxa markii la joogo suuqan forex aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. qodobka labaad haddii aadan anshax lahayn micnaheedu waxaa weeyaan waxaad noqon doontaa loser oo ah inaad trade badan aad furto oo aadan suuqii aadan xushmaynin aad noqoto qof akhlaaq daran. sidaas darteed marka suuqa uu kaa soo horjeesan doonaa wuuna kula dagaali doonaa wuxuuna ku guuleysan doonaa in uu kaa guuleysto adiga oo aad imaato meeshii ugu hooseysay. sidaas darteed marka aad iyo aad ayuu u muhiim yahay qodobka labaad oo ah anshax inaad la timaado. qodobka saddexaad oo midka u dambeeya ah wuxuu noqon doonaa in aad kantaroosho riskiga aad qaadanayso oo ah xakameynta khatarta. waxaa lagaaga baahan yahay marka aad xakameynayso waa inaad la socota akoonkaaga inta uu la egyahay oo ah meeqa ayaa iigu jirta lacag ahaan. haddii ay kugu jirto $100 aad hesho 2 ilaa 3 signal micnaheedu ma ahan saddexdooda haddii ay guuleysan doonaan inaad ku gasho dad aad iyo aad weyn. tusaale $100 ayaa kugu jirta akoonkaaga 3 signal ayaad heshay ama 2 signal midkiiba waxaad ku gashay 0.03 waad qasaartay 2 ka mid ah meeqa ayaa kaa go-eysa akoonkaaga. waxaa macquul ah inay kaa go-do ku dhawaad 30% akoonkaaga waana mid aad iyo aad u nasiib daro ah. marka qodobka saddexaad waa inaad aad iyo aad uga taxadirtaa aadna ogaataa akoonkaaga intuu la eg yahay inta trade aad haysato oo aad buy ama sell aad ku sameyn doonto. kadib waa inaad fiirisaa targetka faa'iidada intuu la eg yahay iyo targetka khasaaraha intuu la eg yahay. saddexdaas shay aan soo sheegnay haddii aad sida ugu macquulsan ama sida ugu fiican aad samayso waxaa hubaal ah inaad noqon doonto qof ka sameeya isbuucle ama bille markii aad xisaabtaada aad samayso suuqan. insha allahu tacaala waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. haddii aad ka heshay subscribe, like and share and comment. السلام عليكم ورحمة الله